xilli fooda ay nagu soo hayso maalmaha xurriyadda ee dalkeena Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaq iyo diyaar garow aad u xoogan oo maalmahaas loogu jiro waxaa si aad ah looga dareemayaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Safaaradda Soomaaliya ee dalkan Kenya ayaa wada abaabul iyo qorshe ballaaran oo munaasabadahaas ay ugu qabanayso magaalada Nairobi iyadoo maanta xarunta safaaradda ay shir ku wada yeesheen mas'uuliyiinta safaaradda iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kenya oo iyaguna qayb ka ah soo dhaweynta maalmaha xurriyadda waxaana shirka lagu saaray guddi qaban qaabyo munaasabadahaasi. danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkan Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay doorka safaaradda ee u diyaar garowga maalmaha xurriyadda. haddaan nahay safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya ku taala iyo bulshada weyn ee ku nool waxaan qabanqaabo ugu jirnaa inaan qabano 26 Juun xafladiisii iyo 1 July xafladeedii waxaan rajaynaynaa in ay ummadda Soomaaliyeed ee dhulkan ku nool jaaliyadda Soomaaliyeed nooc kasta yihiin ganacsatada culimada dhalinyarada ardada dadkaas oo dhan inay ka soo qaybgalaan si xoogan uga soo qaybgalaan. sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay shirka ayaa dhankooda soo dhaweeyay doorka safaaradda ee qabsoomidda maalmaha xurriyadda dalkeena Soomaaliya. run ahaantii aad iyo aad bay cajab gelisay hawshu sida u socoto qaabka loo qabanayo iyo guddiga loo soo saaray. waxaan maanta meeshan u joognaa inaan diyaarino dhammaan marka ummadda Soomaaliyeed ee jaaliyadda community-ga Soomaaliyeed ee ku nool Kenya wuxuu diyaar u yahay xafladan inay xaflad weyn oo qarannimo oo ummadda Soomaaliyeed midnimadii lagu yaqaanay ah oo horumarkii iyo wadajirkeedii in maanta lagu dhigo. xafladan waa xaflad qaran way ka duwan tahay kuwii hore oo sanadihii hore meeshan Kenya lagu qaban jiray. sanad guurida ummadda Soomaaliyeed ludda iyo laftaas leh labadii walaale 60kii midoobeen iyo 1 Luulyo sanad guuro wacan ayaan idin leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogtaan hanbaliyo kulli ilaahay fadligiisa shirkii waa noo hirgalay safiirka iyo staafkiisaba maanan ka hagranin wixii dan Soomaaliyeeda iyo qaabkii quruxsanaa ee loo dhigi lahaa munaasabada weyn oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunka ku nooshahay ka dhaxeeya. Soomaaliya iyo caalamka ayaa meelo badan oo ka mid ah waxaa xilligan ka socda diyaar garow aad u xoogan oo lagu weyneynayo maalmaha xurriyadda ee waddankeena Soomaaliya ee 26 Juun iyo 1 Luulyo ah markii gobolada waqooyi ee dalkeena Soomaaliya ay xurriyadda ka qaateen gumaysiga Ingiriiska iyo israaci gobolada waqooyi ee koonfur. waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhankeeda ka wada magaalada caasimadda ee Muqdisho qaban qaabo aad u xoogan oo lagu weyneynayo maalmaha xurriyadda iyadoo guddi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ay soo magacowday dowladda Soomaaliya kuwaas oo ku howlan qaban qaabada xuska maalmaha xurriyadda ee dalkeena Soomaaliya. Umar Caaqil SNTV Nairobi.